سلام كبعدي runtii beeshaani maadaama dalku uu ku socdo nidaam qabaliya weli oo la diiday in laga gudbo beeshaani haddee beelaha ugu muhiimsan kuwa ugu sii muhiimsanay ku jirta marka runtii inay ka hadasho dareenkeeda iyo marxaladda dalku maraayo oo ay fadhiga ka kacda oo ay Soomaaliya samata bixinteeda ay hormood ka naqato iyo saxiideeda aad iyo aadan u soo dhaweeyna hadaan nahay axsaabta siyaasadeed marka la fiiriyo marka waxna waxa waaye taariikh waxna waxa waaye maanta la joogo waxna waa birito adduunyada sidaas ay u qaybsanta haddaan taariikhda dib ugu naqana waxaa dhici karta inaan marka boogaheena iyo waxyaabo aan ku kala duwaneen iyo shaayaashaas inay nala gasho lama rabo maxaa yeelay tagtadaaya timaada qabaa la yidhaah ummadaanu ama beeshaanu waxay ahayd beelaha mar walba ma taqaanaa juhdiga badan ku bixisa dalkan inuu isbedel ka dhaco hase ahaatee marar badan oo ilduuftaa jirta dadkuna hadday ilduufaan dhibaatadeeda ay leedahay hadda dhibaatadeed marka haysata waxaa ka mid ah projectiga laga fushadaa dhexdeeda project ilaa quwaday iska leedahay isma oga marka waa loo fikiraa qorshaan lagu fulaa hadda dawladdan hadda jirta waxay ku timiday projecti laga keena qadan ay ku timid روح لا يراد من جديد وتغانين هذا هل أمة تغانين لكن وامقشة روح لا صل عكشن مليان هي كانت من ماشي لا يرادو قدر شغالين كفشتي مشروع اللي كانت إذن كوحالين المركب annaga u sarreeyna dalka aad leediin idinkana mashruuca idinku soo waxaad ka garan kartiin muqdisho oo 3 milyan ay ku nooshahay oo meesha beeshaan ugu badan too xarunteedii oo Soomaali xarunteedii kuraas male ninka gudoominaya ma idinka idin batala إلها إذا كنا أرشيها داود المتلينا ما أركتنين وكجوابا ما الدرين كين وكجوابا تدكي مالك الشطاء وشغيها إذا مالك الشيء اللي هو يميدي حضرتا كراستا أو هوية oo beeshan ka imaanay ayaa ugu lacag badan waxa la gato wuxuu joogaa kursiga oo hawiye mid malyan oo joogaa midna 500 oo joogaa oo kuna doon muxuu ku joogaa in hawl lagu fushado waa qandaraas waa project waa mashruuc ولله إذا كنا أرشيء قفد متشهدان درنا أو نقرن كون درنا أو تلاقى إذا كنا أكتين إذا ما رحنا كل ما هي إله إذا كنا أرشيء قيل جوك تحت تري والدولة دوام مبادئ دولة دوام بريسبال أركتك قرن إن هذا لا إنه قف كليه على الربع عقيرة وحو متلا إنه يقانا للربا
حلبان أياد دولة كان أسامة دحوينا دورت حلبان كان بيشا صدر تصوم عن الله لكل شيء هذه أو حلبان كمركب أو نما تلاد فهمين أو نما تلادين ملك تجي أو نلا حساب تلهينا أو نما دحوينا نك وكذا أو نلا حساب تمي أنه نشروع ضايدين طنطا أو نضلك كفله محاولين أنفع زوما من دللي يوم مشروع أو شغالة زوما أو قفلة شقيها هذا دلك وهو مرة كنتم كو حلبان كنتم كو إرجو أهلك حلبان دوريها لي إلهي يكون أشياء دار أنت دورتين كوا قدية دار أو حلبان كيدين متلك رسول صاراي أنت العقد قاريسين إسكت أفتان أما أنت قادتين أد بينك شركتان اللي لانوش كحلال ما هنمر والبيت نني إذن متلك أو حلبان إذن نقدر هاي بكهلا ما إلهي يكون أشياء مدد كان إذن نباتيها صوبح مركز وحال يذكر باسحيد وماشى سيجر تاينا السحدين وحاسوا هنا أغل كسر أغل كسر دولة صوماليا مد انت ميل كلا كتب ماد إذن كسوف فيدي معه إيدو سوحو بيستيدين ما هي معه ومد إناد إذن كؤاد بربارسان إذن كربت ومد حرمتي عاصمة دود إذن كنت جنيدين فضلا ورهدي إذن كنت تكرفشو نقدتك ماذا به كرينا سيدي كنت تكرف مرة إذن كي مرة إذن كربت بربارين وحال روا مركا هذا تسطور كسد حاوتي اللي قبل كبراندر سد حبيب حقالك يا إلهي لكل شيء وعمري ما كتب ثبتها ننكي قري واسويري هذه وحده تسطور ككبر رايو او العداله درا idinka idinku ahay inta laga taga meel kale loo weeciye xagee marka il ka qoraya sahansan wala ma hidin ilaahay idinku dhaarishay warqofku xoogo wax isaga dhacasha amba xigmad war xilliga xooga waa il duufteeno meel banaanaad ku biyo baxday war hadda aqliyay taagantay miyaadan tashakarina oodan waxaan ka mira dhali karina aad qorteen waxaan marka idinka rabnaa oo la idinkaga baahan yahay 8 maalmood xasan sheekh maxamuud إلا وحال الربا هذا وحال ليدا نم ولا هذا لي وحال ليدا بيش عندك كنش وحال ليدا دولة صوص عطان كهذلنا عندنا هنا كهذلنا وحو كله مدحويني ما كوجيه كله ورثدية 8 maalmood ودي من داتنا هل مالنا دايود من تنكوا مدحوينه كله إلهي تكون أرشيد سيداس دانا قود ما لوغا هاد لكرا مستقبل ما لوغا ديسي كرا أفرت سنوات نماتي 8 maalmood كيرت هرتينا لوغاتينا لين كرا 8 maalmood كبعد حسن شيخ محمود من شعب الله فرصة كليه يدي في المركب وأوقات كيستين وأكون مهدسنتين دلقادة دليرين وأضد كيسكرتين لكن هذا أفر كلام أضد كيسكرتين إسبدل كينا دينكو كنتين على الربا مت بنيهين
iyo mustaqbalkiina iyo Soomaalinimada ka turjumaana inuu naqdaa la rabo annagu hadda maalmo dhaweed markii meesha la idinku garaacayo oo idinka la idinku soo weeraro annagu waa idin taageero dalkana sidiisa hadda waxa la idinku ribeeyaa anigu waxaan u maleeyaa shabaab inay yihiin maayna wax kale oo hadda meesha yahay ma jirto maxaa yeelay shiraan u diida la warrami ma karo qofka dhaha shabaab oo ku tashay hadda wax kale kuma tashay waxaa la rabaa marka inaad ogaatiin inuu idinka talada leedihiin waxaadan idinku rabinana inayna dalka ka soco karin maxaa yeelay fiiri haddii adiga madax lagaa dhigo dadkaaga inaad kala qaybiso oo qaybna xaquuq male aad tiraa qaybna xaquuqay leeyihiin ma cadaalada ilaahan idinku dhaarshe ilmahaad adigu dhashay mas-uuliyaddu saas oo kale waaye haddii aad dhahdo qaybna wax male waa wixii oo waad aragteen nabi yuusuf markii uu riyoodo aabihiis u sheegay oo inuu jecel yahay la arkay soo tobankii kalamadii asiga ceel ku mariyay kala fadlilkaas jawaakeena oo aabihii laga arkay aaba Yacquub oo laga arkay ayaa keentay in nabigii lagu rido ceel war dadkaan Muqdisho ku joogo wax male meelaha boora mana wada xulleeyo soo cadaalad darrama maxay ku mudaysteen marka dadka inayna xaquuq yeelan soo cadaalad darro naqameen cadaalad darro inaad ka dirirtiyaa idin diidi kara ilaahay yaa ogol sidaa darteed hadda kooxda Damul Jadiid waxay ku wareersan tahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaq waxay sameeyaan naftooda hadda ku mashquulshay waxay leeyihiin seen markana ku soo naga karno hadda abukaata Umar dhageeyay waa idinku brief gareeya waxay yiraahdeen war lacagteen konta iyo kow gada ma karno waxaa loo baahan yahay yiraahdeen inaad justification soo sameysaan ee madasha bisha toddobadeeda dhacaysa aad keentiin markaasna anaga ansaxayn hadda saasay ku maqan yihiin waxaad arki doontiin bisha toddobadeeda doorasho ergaa oo konta iyo kooba lacagaan ku bixina ma hayneen haddana oda dhaqameedkii ayaan ku filanahay oo lacag la kala gaarnay iyagii 135 kaliya waxa soo qoraano ay haddana dhihi doona maxaa yeelay waxaad arkaysaa hadda wax shaqaa ma socdo harahaasay habeen horeesu sheegay aad iyo aad u mahadsantiin waa idin hambalyeeya Soomaaliya inaad samata bixisiin idinka la idinka rabaa inaad hormood u naqatiin idinka la idinka rabaa xaqiina inaad ilaashatiin idinka la idinka rabaa madax fiican inaad soo saartiin idinka la idinka rabaa aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh